waxaa si rasmi ah magaalada Gabiley ee Somaliland looga bilaabay dhismaha library casri ah oo laga hirgelin doono magaaladaasi. warkan waxaa Gabiley nooga soo diray wariye Maxamed Wadiin. waxaa maanta magaalada Gabiley si rasmi ah looga bilaabay dhismaha library casri ah oo dhawaan laga dhagax dhigay magaalada Gabiley. maktabadani dhismaheeda laga bilaabay Gabiley ayaa waxa la filayaa inay wax weyn ka tari doonto habka wax akhriska si loo soo saaro jiil ka dhisan aqoonta. waxa dhismaha bilowga library-ga ka soo qayb galay mas'uuliyiinta guddida gacanta ku haysta dhismaha maktabadda maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley. ugu horeyn mas'uuliyiinta guddida gacanta ku haysta dhismaha maktabadda iyo mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa ayaa madasha ka hadlay. waxaan maanta halkan runtii farxad weyn oo ah inaan halkan barasaabka iyo duqa hortooda aan ka shaacino haddaan nahay guddidii dhismaha library-ga qaranka ee Gabiley mas'uulka ka ahayd inaan halkan maanta ka sheegno inaan hawl badan dabadeed maanta si rasmi ah ay shirkadii dhismaha dhisay ay u bilaawday dhismihii oo socon doona muddo ugu badnaan 10 bilood ah ugu yaraan 8 bilood haddii la yiraahdo waxaan ka rajaynayaa bulshada gobolka iyo guud ahaan Somaliland inay hawshaasi bilaabantay ay tabarucooda iyo taakuladooda runtii kaga qayb qaataan. xad weyn bay maanta inoo tahay iyadoo inoo bilaabmayso hawshii library-ga ee muddada badan aynu ku soo jirnay dadaalkayga iyo hawsheeda in badan la soo rogrogayay maanta way inoo bilaabantay oo shirkadii bilowday dumintii iyo banayntii hawshana saasay noogu bilaabantay muddadiina waxa sheegay ay soconaysay dhisku gudoomiyaha waxaan halkan baaq uga diraynaa dhammaan cid kasta oo danaynaysa library-gan inay u guntadaan hawshoodana soo garab galaan. anagu shirkadda asli ahaan aad ayaan idinku mahadnaqaynaa intaad nagu ixtiraamteen ee aad nagu maamusteen dhismaheeda. waxaanu ballan qaadaynaa dhisme quality-giisu aad u sareeyo magaca ugu yeeri maayo goob wax akhris ee waxaan leenahay waa goob bulsho waa goob aynu wada isticmaali doono dhammaan reer Somaliland iyo cidii kale ayna soo boqotaba. mas'uulka ugu sareeya dawladda hoose ee degmada Gabiley ahna maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa isaguna madasha ka hadlay waxaana uu ku dheeraaday ahmiyadda uu dhismahani u yeelanayo bulshada ku nool magaalada Gabiley. maanta halkan waxa si rasmi ah aynu uga shaacinanaa inay bilaabantay shaqadii ama dhisitaankii maktabadda oo aan hore loo dhagax dhigay. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa guddida aan u xil saarnay inay u gudtato dhismaha ama hirgelinta maktabaddan qiimaha weyn ugu fadhido guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley oo aanu rabno insha Allah taala markay inoo hirgasho inay bulshadeena wax weyn ay ku soo kordhin doonto. maktabaddan qiimaheedu waynu wada garaana oo deenan ragiina waa ogyahay nacasna loo sheegmaayo waxay soo kordhinayso iyo qiimaha qaranka iyo reer Gabileyba ay u yeelanayso insha Allah taala. sidaa daraadeed waxaynu doonaynaa inaynu iska xil saarno hirgelinteeda ninba waxba kaga beegan. barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu bulshada reer Gabiley ee ku nool daafaha dunida ugu baaqay in laga soo qayb qaato dhismahan maanta la bilaabay ee ay ku baxayso $1 milyan. maanta waxa farxad noo ah runtii dhagax dhigii aynu halkan dhagax dhignay library-ga ee qaranka ee Gabiley maktabadda ahayd oo runtii aynu dhagax dhigeedii iyo shaacinteediiba aynu goobjoog u ahayn maantana dhismaheedii halkan laga bilaabayo. runtii himilada iyo hanka iyo qorshaha aynu dhignay inagoo isku duuban runtii haddaynu nahay inaguna gobolka Gabiley aqoon-yahankiisii ganacsatadiisii dadkiisii kale magaranaysa dhaqaalaha hayay inay inaguna qorshayaasha wixii nalooga aadiyey ganacsatada iyo dadkii kale waxaysta in ay iyaguna contribution-ka runtii nagala qayb qaataan oo ay huraan wixii laga doonayo. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin wararka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.